Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta Hooyos Dishes waxaa idinku tusinaynaa sida loo sameeyo almond cake. Alaabta lagu daraayo dhan waa ujeediin. Ovenkan kululeysanaynaa ilaa alaabtaan isku daranayno. 2 ukunaan baaquliga ku shubtay iyo 1 koob oo sonkor ah, nus koob oo subag ah iyo almond flavoring oo nus qaando ah sida ujeediin. Intaasaan isku qasanaynaa. Keegan markaa sameysanaysid gacantaa ku sameysan kartaa, wax mashiin ma u baahna. Aniga maadaamaan mashiinka haysto oo fududeyn waaye aan ku sameynayaa, laakiin gacantaan ku sameyn karaa, waana ku sameyn jiray intaana mashiinka soo gabanin. Marka hadda waxaan isku daranaynaa alaabtii kaleete, burkii oo 1 koob iyo bar ah, cusbadii oo nus qaando ah iyo 1 oo qaando iyo bar oo baking powder ah. Waa isku qasaysaa. Markaas markaad isku qastid kadib ukuntii iyo sokortii iyo subagii ii qasnaay ama ii qasmaaya ayaan ku sii shubanaa. Si tartiib aan ugu shubaa, kiskis aan ugu shubaynaa sidaad u arki doontiin. Waatana burkiyaan ku dartay, intii kalena in yaran marka hore ku daray, kadib intii kale kiskis ayaan ugu shubaa. Kulligooda markay isku qasmaan ayaan ku daraa intii ugu dambeysay oo ah caanihii iyo almondkii. Waa caanaha 1 koob caano oo kuwaro dhiman, waa 3 kuwaro oo caano ah, waa koob wax yar dhiman. Caanahaas kiskisaan aan ugu daraa siday ugu qasanto si wanaagsan. Kadib caanaha markay noo dhamaatane almondkii ugu dambeeya, almond slice ay dhahaan. Waa almondkii kor laga fiiqay sidaad arki doontiin, oo slice laga dhigay. Dukaamada lagu gadaa, waa soo gadan kartiin. Waa kaasa almondkii aan ku shubanayaa. Almondkii markaan ku qasno intaasay noogu eg tahay. Wixii dhan ingredients-ga aan horey idinku tusnay beginning ugu horeyntii oo video markaan duubay waaba intaas ugu dhamaatay. Hooyos Dishes 5 daqiiqo ama 6 daqiiqo ka badan ma duubna video. Waqtigaa naga dhumayaan diidaynaa. Qof walbo waa busy. Wax yar oo macaan oo easy ah diyaarso. Sufriyadii aad ku duban lahayd keega, wax yar subag mari, bur yar ku buubuubi si aysan keega nooga dhigin. Waa keegii oo qasmay hadda oo aan ku shubtay sufriyadii oo aan mariyay subaga, burna aan ku buubuubiyey wax yar. Sidaa inay sheegay inay keega nooga dhigto ma rabno. Keegii hadda ovenkan gelinaa. Sidaa ujeediin ovenka ku jiraa 350 Fahrenheit ayaan gelinay ovenka. 40 daqiiqana waa geliyey si aan 40 daqiiqo u sugno keegi intuu ka dhignayo. Keegii hadda waa noo soo baxay, maasha Allah. Sokor yar oo shiishiidan kor aga buubuubinaa oo just a decoration. waa qasab maaha inaad sokor shiishiidan kor aga shubto. Haddaadan haysanin wax dhib ma laha, keega sidiisaa lagu cuni karaa.
waa just qurxis. keegii waa kaasa hadda diyaaraan u nahay inaan cunno. shaahan u karsanay. idinkana waxaan rajaynayaa inaad isku daydiin inaad keegan samaysataan oo aad iisoo sheegtaan commentiga haddii aad jeclaateen. subscribe Hooyo's Dishes. haddii ilaahay idin. Assalaamu calaykum.